السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا عروسة بلا وضغو براتين ديارين عروسة هاجاتين تيدا iyo qurxinta dabiiciga ah iyo casriga ah. Maanta waxaan halkan idinku soo bandhigaynaa xawaya saabuun maqribi oo kulligiin wada garanaysaan. Caagadan oo kala lagu iibiyaa iyadoo la shubo way jirtaa. Waa isku mid walba noocaas weeyaan. marka saabuun maqribi maxay tartaa? saabuun maqribi sayna ognahay saabuun maqribi sayna wada ognahay saabuun maqribiga oo suuqyada dhan ka wada helo isagoo shushubada $1 soo shuban karto isagoo caagadahan ku jirana aad soo iibsan karto. waxaa loo isticmaalaa saabuun maqribiga marka la maydhanayo jirka iyo madaxaba loo isticmaalaa. aan ka horeyno jirka marka doonaysid inaad u isticmaasho waa laba mid. haddii aad ku galaysid xamaam maqribi oo joogta xamaam maqribiga waxaad sameynaysaa biyihii kululaa xamaam maqribiga sayno dad qofkii isticmaalay xamaam maqribiga marka lagu galayo biyo kulul jirka lagu shubo ayaa maxay la mariyaa saabuun maqribigana. haddii kale oo aad gurigaaga joogto oo aan haysanin qolkii maqribiga iyo waxaasoo dhan baad haysanin adiga ayaa ku samaysan karaa xamaam maqribi gurigaaga. waxaad soo qaadaysaa kan oo kale kan baad soo qaadanaysaa. kan markaad soo qaadato waxaa kaloo u baahan tahay liifada waa noocaas waa liifad kan ayaa wata waa liifadii maqribiga ee lagu talagalay in lagu xoqo jirka sidaa loogu xoqo marka dambe. liifadan oo kale aad soo qaadanaysaa iyo saabuun maqribigan kadibna jirkaaga biyo kulul baad ku shubaysaa. inta biyo kulul ku shubto jirkaaga waxa furmaya daloolada jirka ayaa furmaya. marka biyo kulul oo aan ku gubayn laakiin kulayl aad yara xiga yani kulayl badan laakiin aan ku gubahayn maad ku shubto oo jirkaaga aad aragtid inuu soo maxay kululaaday kadib ayaa waxaad marinaysaa saabuun maqribiga in yar baad ku daynaysaa. muddo yar baad ku dayso waxaad soo qaadaysaa liifadan inta biyo yar iskaga maydho saabuuntii yani maha saabuuntii kugu soo taagtaagan laakiin inta biyo yar iskaga maydho soo qaadaysaa tan gacantana tan u gashanaysaa saasoo kale gacanta ma u gashatay kadibna saasoo kale aad ugu maydhaysaa. waxaad sameynaysaa markaad kadibna intan aad isku xoqdo oo dhammaan wixii madmadowga jirka oo dhan aad saas waxaad dareemaysaa inuu jirkaaga wax madow saa uga soo duuduubmayaan oo markastoo saa ugu xoqdo aad dareemayso jirkaaga inuu urur yar soo yeelanayo. marka uskaga oo dhan baad iska saaraysaa. uskaga oo dhan kadib markaad aad iska saarto biyaad isku maydhaysaa. biyo markaad isku maydho tan waad iska bixinaysaa. waxaad soo qaadanaysaa diin maqribi sawirkiisaan idiin soo dhigi doona insha Allah halkaas ka arki doontaan. diin maqribiga aad soo qaadaysaa ood qooshaysaa jirka oo dhan baad wada marinaysaa. kadib jirka oo dhan markaad wada mariso kadibna waad iska maydhaysaa yani muddaad ku yara daynaysaa ilaa 15 minute kadibna waad iska maydhaysaa. kadibna waxaad sameynaysaa intaa markaad iska maydho waxaad sameyn kartaa inaad iskaraab oo kale aad jirka inta soo qaado iskaraab nooc doonaba ahaado ay iskaraab aad haysato jirka inaad ku xoqdo kadibna haddii aad doonaysid yani inaad xoog jirkaaga u nadiifiso jirka waxa ku jiro oo dhan ama wixii sanado ku jiro oo dhan iska soo saartid iskaraab baad ka daba marinaysaa. waxaad soo qaadi kartaa oo kale huruud qasil maxay iskaraab waxyaabo badan oo saas ugu soo dartay timir oo isku wada qoostay ayaad kasii daba marin kartaa oo iyaguna jirka nadiifinaya. wax aad jirka ku wado oo dhan markaad dhamayso kadib ood isku wada nadiifiso oo jirka ka maydho waxaad sameynaysaa oo waliba taas ikhtiyaar haddii aad doonaysid haddii kale waxaad soo qaadaysaa maxay fooxa cad biyo yar ku radisay biyihiisa waad soo qaadaysaa. markaad ka maydhato kadib biyahiisa marsanaysaa. biyihiisu maxay kuu tarayaan horta wuxuu sameynayaa fooxa cad sawirkiisa aan idiin soo gelin doonaa. suuqyada ka soo heeraysaa fooxa cad la cabo jirka wuxuu siinayaa udgoon yani jirkaaga cadar uma baahanay xataa udgoon buu noqonayaa. kadibna markaad ka soo baxdo iska soo maydho jirkaad iyo xamaam ka soo baxdo kareem saliim ama saliido ayaad jirka ku duugaysaa si uu jirku tartiib u yeesho. fadlan subscribe ha ilaawin like and share.
waxaan kaloo idinka ilaaway waxaad samayn kartaan cream cup haddii aad haysataan cream cup oo guriga idin yaalo waxaad samaynaysaa cream cup-kaad soo qaadanaysaa jirkaaga oo dhan baad marinaysaa ilaa wejiga kadibna markaad wada mariso 15 minute ku joogaysaa ama 20 minute kadibna intaad saa isugu xoqdo ciid yar buu leeyahay saa isugu xoqdo ayaad iska maydhaysaa cream cup waa cream cajiiba wallaahi run xoog u nadiifinaya jirkaaga waxyaabaha kale aad isticmaali karto waxaa ka mid ah xinaha cad haddii aad haysato weeyaan xinaha cad ayaad ku daraysaa waxyaabaha jirka xinaha cad iyo scrub-aad isku dari kartaa xinaha cad iyo huruud iyo kurkumka la yidhaahdo iyo qasil waxyaabahaasoo dhan intaad isku darto ayaad jirka marin maca boorash baad ku dhex dari kartaa iyo timirta shiidan iyo waxaasoo dhan kadibna jirkaad marin kartaa halkaa kale waxaa kaloo inooga muuqda dhagaxa yar waa dhagaxii lugaha dadka jajabka oo kale lagu xoqeeyay haddaad haysato waad ku xoqanaysaa markaasaad samaynaysaa insha allah kadib markaad intaasoo dhan dhamaysato aad maxeeday kadib markaad jirkaaga maydho wuxuu badan insha allah saliid haddaad haysato saliida fiican oo original ah ayaad jirkaaga waad marinaysaa haddii kale saliida inaad marisaa aad jeclayna waxaad marsanaysaa kerisaliin faasliin kolba kii aad jirkaaga u isticmaasho ayaad u isticmaalaysaa